بسم الله. magacaygu waa Marin Saciid Maxamed. waxaan deganahay xaafadda Brandir. marka waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo xiriirka naga dhaxeeyo shirkadda Deegaan Dhowr. shirkadda Deegaan Dhowr waxaan isla shaqaynaynay muddo 3 sano dhan. marka shirkadaas waxyaabahay ii keeni jireen waxaa ka mid ah shaqaalaha. marka anigu shaqaalaha baahidan aan u qabay waxay ahayd shaqaalo meel loo raaca leh. shaqaalaha inta badan oo xaafadaha laga keenayo inta badan haday maanta wax ka qaataan ama haday dhibaato ku geystaan meel loo raaca ma lahan. laakiin shirkadan waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ahaayeen aqoonsi shaqaale aqoonsi leh oo haday wax ka qaataan ama wax dhibaato ku geystaan aad ku siinayo meel loo raaca leh. marka inta badan shirkadan aniga horta waxaan ku jeclahay waxa ka mid ah maanta kale shaqaaluhu haday ka tagaan waxa kuma fikraysid ama kuma walwalaysid inay kugu qaadato muddo dheer saa ku heshato shaqaale. marka inta badan shaqaalahooda ayaga waa heegan maanta kale haday ka tagaan isla maanta kale haddana mid kale lagu keenaya. waxyaabaha aniga aan ku jeclahay shirkadda Deegaan Dhowr waxyaabahaas ka mid ah. marka run ahaantii horta aniga waa fikir ahaanteena waa shirkad aad u fiican. marka waan ugu mahadcelinayaa dadaalka dheer ay sameeyeen iyo inta muddo aan soo shaqaynaynay. haddana waxaan ku rajaynahay intaan in ka badan inaan isla sii shaqayn doono.